laakiin calaamada munaafiqa weeye maalinba hadduu wax yidhaahdo ama meel u kaco dhowrkaa haddii aynu dib ugu yaro noqonno waxyaabaha laga faa'iidaya ugu horeyn fiihi jawaasu laxmu xumuri lwaxsh dameer dibadeedka hilibkiisu uu bannaanyay ixtiraaskeenu ka fahmaynaa ama mafhuumulmukhaalafa oo nebigu wuxuu yidhi laa yaxilu lakum laxmu lximaari lahli baalkan dameerahan idinla joogaa xalaal maaha marka maxaa laga fahmay dameerkii dabadda joogay inuu xalaal yahay markaa sharcigu wixii uu inoo sheegun baynu qaadanayna haddaba laba dameeroo isku mid ah markaad iminka saa u eegto midna hariiryuun buu leeyahy midna waa bilaa hariirya liidimo ayuu leeyahay markaad eegto dhan walba waa iskaga mid marka lama odhanayo kanina dee ilka sare u leeyahy kanina waa ilka sare waa laba dameer siday soomaaliduba yidhaahdaan waa gammaan ilka sare u leeyahy waxaase akhriyaan waxaa aragti faqadi iska shaqayn maysa sharciyo daliil baa shaqaynaya marka dameer dibadeedkaasina waa xalaal sida farduuba xalaal u yihiin dameerkaasina cadkiisa iyo caanihiisuba waa xaaraan laakiin waynu dhaqanaynaayo waa la kala iibsanayaa waa la raranayaa gaadiid baa laga dhiganaya waxa labaad aynu ka faa'iidaynaynaa yustathnaa min kulli dii naabin addabuc nebigu waxau yihi waxa cadkiisu ama hilibkiisu xaaraan yahay wax kastoo mici leh dee waxaa laga soo reebayaa maxay waraabaha waa xadiidkii jaabir baa ee saxiixa ahaa ayaa tilmaamay annahu sayd inuu ugaar yahay meelaha mashaacirtana berigii hore hilibkiisa waa lagu kala iibsan jiray marka culimmadu waxay isku khilaafaan laakiin dee qolada qaba inuu xalaal yahay daliilkaasay keenana waxay leeyihin daliilkan diinaab micida sheegayaana waa caam kaa kale waraabaha khaas ka dhigayaana waa khaas waxa weeye wax kastoo micili waa xaaraan ilaa kan daliilku soo reebaye dee waraabaha ah mooyaane dadka qaarkood baa ku odhanaya waraabuhu kan la sheegay maaha waa midaan mici lahayn waraabo micile maynaan arag mid walba micidiisa geeduu ka taaga calilugyare geedna lugtu ku martaa intaa halkuu ku qaniino wuu soo goostaa uun waxyaabuu ilaahay ku arsaaqaye ka midin dhakada adagi markaa dabc haddaad iminka googalgarayso ama munjidka iyo aclaamtii berigii horeba ka eegto waa keenna halkan qaarka dambe u gaabana xagga hore u weyne oo waraabe caadiyahu marka taasina halkaasaa laga soo reebaya waxaa kaloo aynu ka faa'iidaysanaynaa mistaaqiyatu shakhsi tatawaqafu bihubuuti mawaaqifi qofka muslimka ah shakhsiyaddiisa waxa lagu qiimeeyaa mawaaqiftiisu siday u yihiin wax lagu talageli karo oo munaafiqanba wuxuu nebigu ku eedeeyey inuu guurguuro kolba meel ka dhaco